iyo mar saddexaad ba haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan waanu ka fiirsan doonaa wada shaqaynta aanu la leenahay dawladda. waxaanu leenahay wasiir arrinkaa ka waantow arrinkaa danad ka waantoobin. waxaanu aad iyo aad uga xunnahay xadhigga cadaadiska iyo caburinta lagu hayo guud ahaan warbaahinta Soomaaliland. haddaanu nahay warbaahinta magaalada Cergaabo waxaanu kala midaysannahay warbaahinta kale isla markaana ka xunnahay xadhigga lagu hayo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland. si gaar ah waxaanu u cambaareynaa xadhigga iyo xayiraadda la saaray telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika. waxaanu soo jeedinaynaa xukuumadda Soomaaliland inay si shuruud la'aan uga qaado xayiraadda ay saartay telefishinka. bismillahir rahmaanir rahiim. halka waxaan ku joognaa warbaahinta Cergaabo. saaka waxaanu cambaareynaa xadhigga xukuumadda Soomaaliland ay kula kacday telefishinka codka bariga Afrika. waanu ka xunnahay xadhiggaasi. muddooyinkii u dambeeyay xukuumadda Soomaaliland waxay caadaysatay xadhigga saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala Soomaaliland. runtii waa nasiib darro in xukuumaddu ay aad u farabadiso inay xidho telefishinada madaxa bannaan iyo wariyaasha. xadhigga telefishinka aad baan uga xunnahay. sidoo kale waxaa nasiib darro ah in wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland uu isagu noqdo qofka go'aanka gaadhaya suu doona yeelaya. arrintaasi waxay ceeb weyn ku tahay garsoorka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. waanu ka xunnahay waanu cambaareynaa. runtii waxay ka xun yihiin saxafiyiintu guud ahaan Soomaaliland kuwa Cergaabo kuwa gobolka Sanaag baan la qabnaa xayiraadda lagu kacay CBA oo runtii ahayd in anagu ka hadleen balse Soldier ka hadli lahaa ururka saxafiyiinta Soldier. waxaan dhawaan u dooranay xubno 15 ka kooban oo gudoomiye looga dhigay Sikriya Axmed Maxamuud oo ah nin dhalinyaro oo u shaqeeya warbaahinta dawladda. runtii gudoomiyuhu ku fashilmay 15 ka xubnood ee meesha aanu dooranay oo fashilmeen. waxaanu jecel lahay xubnahaas haddii 3 sano u dhamaatayna meesha ku soo noqon mid kamid ah. aad baan uga xunnahay xukuumadda kaliya taliska qabsaday ee wasaaradda warfaafinta loo dhibay ina kooraan weligii bahda saxaafadda iyo wax warbaahin tahay aan waxba ka garanayn. dictatori jabhada in loo dhibo warbaahinta xarun saxaafadeed oo waxaad looga xumaado. waxaanu leenahay wasiir arrinkaa ka waantow arrinkaa danad ka waantoobin. dee berritaba xilka waxba kama hadhin dawladda. warbaahintuna waxay ka qayb qaadan doontaa sida isku dhaafileed xukuumadda adigu ka tirsan tahay. runtii xukuumadda Soomaaliland sifa sharciya uma marin markii ay laalaysay isla markaasna ay xayiraadda saaraysay telefishinka CBA institution dhan oo shaqeynaya ayaa mar qura wax lagu soo rogay xayiraad iyadoo loo cogsaday in uu ruqsad aanu haysan isla markaana ay ruqsadii ka dhacday. waynu ogeyn telefishinka markii ruqsadda la siinayay sifuhu ku shaqeynayay. wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Dr. Kore waxaan u soo jeedinaynaa haddaanu nahay warbaahinta Cergaabo inuu culayska iyo cagajugleynta uu ka daayo warbaahinta. waxaan ku xunnahay maalin been wariye la xidho maalinba telefishin albaabada la isugu laabo. arrinkaas haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan arrin noo cuntamaya maaha mid aanu u dulqaadanayno maaha. waxaa saaka halkan isugu yimi badiba warbaahinta ka howlgala magaalada Cergaabo. waxay si wada jira ay u cambaareynayaan xadhigga lagula kacay telefishinka CBA oo Hargeysa lagu xayiray. waxaana ay ka xun yihiin sida warbaahinta kale ee Soomaaliland ay u cambaareeyeen ayay u cambaareynaysaa warbaahinta magaalada Cergaabo. waxaana ay xukuumadda u soo jeedinaysaa inay caburinta ka dayso warbaahinta madaxa bannaan iyo waliba TV-yada kala duwan ee ay xirayso. waxaan cambaareynayaa xadhigga iyo xayiraadda ay xukuumadda madaxweyne Biixi saartay telefishinka CBA oo kamid ahaa telefishinada madaxa bannaan inta badan u adeega dadka danyarta iyo sidoo kale bulshada jilicsan. xukuumadda madaxweyne Biixi waxa ay caadisatay isla markaasina dhaqangal u noqotay inay cadaadis iyo caburin saarto warbaahinta madaxa bannaan. madaxweyne waxaad hore u sheegtay inaad sharciga ku shaqeynayso laakiin maanta waxa muuqata inaad sharciga baalmartay adiga iyo xubnaha kale ee kugu xeeran ee wasiirada ahiba aad sharciga baalmaraysaan. wasiirku waxaad moodaa in go'aanku uu jeebkiisa ku jiro oo TV-gu doonana waxa yirayo TV-gu doonana oranayo ha shaqeeyo. hore waxaad u ogeeyeen telefishinka MMTV oo isagana la dul saaray lacago baada oo ay xukuumaddu ka doonaysay isla markaasina culays ku ahaa TV-ga oo aanu awoodin. mar labaad iyo mar saddexaad ba haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan
waanu ka fiirsan doonaa wada shaqaynta aanu la leenahay dawladda